maanta oo axad ah 28ka bishan August waxaan ku qabanaynaa galbeedka London meesha la yiraahdo Shepherd Bush carwada buugta Soomaalida 2022 waa sanadkii labaad oo xiriir aan sameynayno sanadkii hore 2021 aan bilownay sanadkan waa sanadka labaad waxaan rajaynaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo hadda kadib inay noqoto taxane sanad walba la qabto waxa halkan lagu soo bandhigayaa buug fara badan waxa jooga ilaa 16 qoraa qorayaal aan joogin oo buugtooda halkan ay taalana waa jiraan buugta halkan lagu soo bandhigay idimooda carabaabi karo laakiin waxaad ka arki doontaan u malaynayaa muuqaalka maxamed daahir afrax buuggiisii maanafay oo ingiriis loo bedelay ayaa markii ugu horeysay halkan lagu soo bandhigayaa buug kale oo fara badan ayaa iyagana halkan lagu soo bandhigayaa hadduu Ilaahay yiraahdo dadka Soomaaliyeedna ay aad ugu soo jawaabeen fariinteeni ayna soo dhaweeyeen runtii bandhigan waxa waaye ahmiyad gaar u leeyahay marka loo fiiriyo afka iyo dhaqanka maxaa yeelay wuxuu kulminayaa oo soo jiidanayaa da'da yar oo hadda maanta adduunkan dibadda ku korayso wuxuu xoojinaa qiimaha afka Soomaaliga wuxuu xoojinaa xadaaradda Soomaaliga wuxuu xoojinaa taariikhda Soomaaliga wuxuu xoojinaa runtii kulanka kan meeshan lagu kulmaayo wuxuu aad iyo aad macnaa waxtar u yeelan doonaa waxa waaye inuu tusiyo jiilka maanta joogo inay ku daydaan jiilkii shalay kuwa soo socdaan in maxaan ku raadaan maanta shay la wargeli waxa waaye talaabada ku xigto oo quseeyo macnaa aqoonta ilbaxnimada iyo qiimaha uu leeyahay afka Soomaaliga meeshan waxaa lagu soo bandhigaa buugag maartay ay qoreen maxaan ku qorayaal oo Soomaali ah kuna qoran badigooda maartay ama boqolkiiba in 90 maartay 99 aan dhigi karaa xataa af Soomaali ku qoran bandhigan maanta waxa weeye carwadii labaad ee buugaagta London taasoo qorayaal badan ay iskugu yimaadeen aniguna aan ka mid ahay qorayaasha sanadkan fursad u helay inuu ku soo bandhigaan buugtooda halkan buug ahaan anigu waxaan soo bandhigay buugay ugu dambeeyay oo la yiraahdo xasuusta habeenkii madow ah oo aan ka qoray qiso dhacday 91 doon ka baxday Kismaayo una socotay Mombasa oo dad ka badan 400 habeenkaas ay ku dhinteen habeenka wixii dhacay iyo sida shilkaas u dhacay iyo wixii ka dambeeyay iyo saameyntii ay yeelatay iyo xusuustii dadkii go'ay habeenkaas buugaas ka hadlaya sidoo kale waxaan ku soo bandhigayaa buugay kale oo ku horeeya kaas oo qoris maris la yiraahdo oo asna ka hadlaya sheeko mid ka mid ah sheekooyinka Soomaaliya laakiin aan ugu talagalay inay qayb ka noqoto sheekooyinkan adduunka mid ka mid ah oo sheekada qoris mariska la yiraahdo weeye waxayna ka turjumaysaa marxaladda maanta wacyiga adduunka ka jira haday ahaan lahayd nooc walba Soomaaliya arag marka labadaas buug baan ka muxuudiin aan hadda ku soo bandhigay halkan waxa kale oo ku sugan goobtan ilaa dhowr iyo 10 qora oo Soomaaliyeed oo kuwa kamida ay goobta ku sugan yihiin kuwa kamidana aysan fursad u helin waxaana kamid ah qoraygeena weyna maxamed daahir afrax oo buuggiisii maanafay oo English ah inuu goobta ku sugan yahay kamid ah sidoo kale sanadkan carwadu waxay ku soo aadaysaa sanad guuradii kontonaad ee ka soo wareegtay qoraalka farta Soomaaliga sida ogtihiin farta Soomaaliga waxa la qoray sanadkii 1972 sanadkan 2022 waa sanad guuradii kontonaad marka waxay noo tahay mar kale farxad inaan bulshada Soomaaliyeed la qaybsano carwadan iyo farxadan sanad guurada kontonaad waxa weeyaan Zainab Daahir waxaan ahay qoraa Soomaaliyeed oo shirkad galo la yiraahdo leh waxaan ka tirsanahay labada urur ee akademiga goboleedka af Soomaaliga iyo Somali Speaking Pen oo ah maxaan ku radaa ururka hal abuurka iyo qaniinleyda Soomaaliyeed maanta ay bishu tahay 28 August waxaynu ku sugannahay xafiiska ama headquarterskii ATM waxa weeyaan waana sanadkii labaad ee aanu carwo buugeed aanu sameeyno oo London insha Allah mustaqbalkan waxaan doonaynaa intuu ka sii kobco Soomaalidu ay ku xidhnaato oo uu ka mid noqdo magaranaysa maalmaha sanadka ka calaamadaysan ee Soomaalida u qoondaysan in
alxamdulilah horta halkii aanu ka bilownay iyo imika halka la marayo runtii waqti dheer iyo waxa la soo maray waayo kala gedisan dadkan waxaad moodaa inay u soo maaragtay bislaanayaan wax akhriskii in buug tayo leh iyo qorayaal fara badan oo ku soo biiray labada ururba ayaa jira alxamdulilah waad arkaysaan buugta maanta taytalada hadhow baynu ogaan doonaa inta buuga isku timaaday waad arkaysaan buugta timid tirada ay leeyihiin ha u badnaadaanba siyaasad baan isleeyahay iyo poetry oo nucaan ku nahay laakiin alxamdulilah buug aad u tayo sarreysa ayaa meeshay la keenay oo magaranaysaa yaalla alxamdulilah inuu mujtamaceennuna uu dee ka war helo ku xidhnaado maxaan ku rahdaa uu dee sugo oo wax uu hiigsada ay noqotona waan jecelahay inay noqdaan waa bilo wanaagsan maxamed cabdullaahi cartan waxaan joogaa meesha oo ah bandhiga buugta London waxaan u imid inaan soo bandhigo buugaagta ay loox press taabacday buugaagta loox press taabacdana waxaa weeye buugaag adigu af Soomaali af Ingiriisi af Carabi u kala baxa maadaama aan nahay maktabad buugaagta daabacda ama shirkad buugaagta daabacda shaqadeena waxaa weeye hagaajinta habeynta farsamaynta nidaamka isku dabaridda tifaftirka waxyaalaha adigu ku tacalluqa buugaagta iyo daabicitaankooda dhan marka taasaan ka shaqeynaa aad baan uga shaqeynaa wadankii ilaa iyo galbeedka iyo gudaha Amazon baan buugaagta ku iibinaa international market kaasayta iyo wadankiiba waa laga wada helaa laakiin anigu waxaan isdhihi lahaa waxa ugu muhiimsan oo loo baahan yahay Soomaali marka la yahay waxa weeye in buugaagta qaabka loo daabaco iyo shuruucdeeda iyo xeerarkooda iyo nidaamkooda guud la nidaamiyo la mideeyo laga dhigo waxa sida maanta ay yihiin wax ka duwan maadaama ma haysano sharci iyo nidaam la mideeyo markay ku timaado publishing ama adduunka wax lagu daabacay buugaagta